wakaalada waqooyiga Kuuriya ee KCNA ayaa sheegtay in hogaamiyahoodu ka shaqeynayo danaha Shiinaha. Yaxya Nairobi ayaa warkaasi faahfaahinaya. wakaalada wararka Kuuriyada waqooyi ee magaceeda loo soo gaabiyo KCNA ayaa sheegtay in hogaamiyahoodu ka shaqeyn doono danaha dalka Shiinaha meel kastoo ay joogaan. waxaanay taasi ku dartay inay si kastoo ay xaaladdu isu bedesho haatan saaxiibtinimada labada dal ay wax kasta ka horeysiin doonaan. hadalka hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya ayaa ku soo boogmaya iyadoo labada hogaamiye ee Shiinaha iyo weliba Kuuriyadu ay kulmeen. hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya oo booqasho ku jooga wadanka Shiinaha ayaa isagu dib ugu noqon doona isla mar ahaantaasi tagay dalkiisa maalintii shalay toolahayd. madaxda sare ee ka tirsan xisbiga shuuciga ee gacantaada ku haya dalka Shiinaha iyo wasiirka arrimaha dibadda ee wadankaasi Shiina Wang Yi ayaa isaguna sii sugaatay hogaamiye Kim Jong Un. hogaamiyaha waqooyiga Kuuriyada ayaa booqasho hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya ayaa booqasho fara ku tiris ah ku tagay dibadda. booqashadiisu uu ku tagay Shiinaha ayaa ahayd mid dhif iyo naadir ah. kulana yeesheen saddexda hogaamiye Ruushka, Shiinaha iyo waqooyiga Kuuriya ayuu madaxweyne Trump si weyn uga qayliyay. warkii oo aad kala socoteen istuudiyaha koobaad ee aan ku leenahay caasimadda Hargeysa khiyaarta qiimeynta qadarinta iyo qaayaha badan ee wadada wanaagtaasi. inta aynu warkan iyo warar kale isku doono. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.